Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan sida loo dhigto brokerka IQ optionka lacagta depositka ah ayaan rabaa inaan tuso. Marka daawasho wacan. Halkan hadda aan ku jiro waa brokerkii. Brokerka markuu kuu soo kaco waxaad sameynaysaa qaabkan ayaad deposit ku dhigaysaa. Qaab fudud waaye. Haddii oo brokerkaadu ama uu ku yahay akoonkaada practice-ka ah, haddii uu sidan yahay oo verified ku yahay akoonkaada, already halkaas ayaad tegaysaa. Meeshaas waxaad ka dooran kartaa realka deposit aad ka dooran kartaa. Haddii uusan verified ku ahayn waa inaad soo buuxisaa intaanoo qodob waa inaad soo buuxisaa. boqolkiiba boqol aad ka dhigtaa. Hadda boqolkiiba 80 oo maraa waxaa ka dhiman keliya depositka ayaa ka dhiman. Qaabka aad u verified garey kartid akoonkaadana halkan ayaad tegaysaa. Waxaad tegaysaa personal data markaad tagtid waxaa kusoo baxayso qaabkan ayaa kusoo baxayso. kadib hoos ayaa u soconaysaa. Inta waxaa ku qoran phone confirmation ku qoran, waa inaad confirmation ku sameydaa. Confirmation aad tiraahdaa. Sidoo kale emailkaada inaad verified ku sameydaa oo emailkaada halkan gelisaa. Kadib wuxuu kuu soo dirayaa mataqaanaa. Kadib emailkaada markaad verified ku sameydid bashqad ayaa ku dhacaysa emailkaada. Code ayuu kuu soo diraa. Code-ka ayaad halkan gelinaysaa. Okay, emailka verified garey, sidoo kale phone-ka verified garey, personal data asigana waxaa laga rabaa in kadib waxaad tegaysaa personal data. Markaad tagtid wuxuu ku leeyahay deposit samee. Qaabka depositka u sameeyay marka meeshaan rabaa inta soo meeshaan halkan aad taabanaysaa. Depositka ayaa taabanaysaa. Depositka kadib waxaad sameynaysaa inaad akoonkaada gelisid passport ama ID mid heli kartid. Waxaad dooranaysaa Visa card ama Mastercard midka haysatid. Kadib halkaas waxaad ku qoraysaa lacagta aad dhigtid. had $10 inaan dhignaa rabnaa. Halkaas waa inay ku ahaataa USD dollar. Kadib process payment. Kadib halkan waxaad gelinaysaa numberka kaarkaaga ayaad gelinaysaa halkaas. Kadib waxaad tegaysaa halkan waxaad gelinaysaa bisha datekeeda aad halkaas gelinaysaa 12. halkan waxaad gelinaysaa xilliga oo dhacaya kaarkaada. halkan CVC waxaad gelinaysaa saddexda lambar oo dhinaca kale ugu qoran. halkan waxaad gelinaysaa magacaada kaar numberkaada ku qoran yahay saddexan aad halkan ku qoraysaa. tusaale ahaan waxaad gelinaysaa Maxamed Ali Farax. saddexdaas magac oo kale waa inay sida kaarka ugu qorayn aad ugu qortaa. kadib waxaa leedahay process payment markaad tiraahdid wuxuu ku soo saarayaa calaamad tig ah lacagtaada waa la dhigay. email ayaa kugu dhacayo fariin ayaa emailkaada lagu diraa lacagtaada inaad dhigta lagu sheegaa. sidoo kaleeto waxaad tegaysaa halkaas trade now ayaad leedahay. kadib lacagtaada akoonka way ku taalaa. waxaad sameyn karaysaa markaas trade-ka rabtid ayaad ku geli kartaa lacagtaada. laakiin waa inuu akoonkaada verified ku ahaadaa oo kuu soo saaraa meeshaas ay ku qoran tahay calaamad cagaar ah tig waa inuu kuu saaraa oo verified ku qoran tahay. halkan ay noqotaa boqolkiiba boqol akoonkaada realka ah. si aad usoo dooratid kan ku dhufo real account dheh iska xir. real account-gaada waa joogtaa. lacagta aad halkaas ka soo dooro. UD card trade-ka rabtid saas ugu gal. okay lacag kuma jirto sorry. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.